halkan waxaan isugu nimid wixii adiga ku keeni jiray halkan waxaan ka diraynaa fariintii adigu aad diri jirtay halkan oo ah xayndaab Soomaaliyeed waxaan ka diraynaa fariintii ahayd waa khasab 4 sanaba mar dalkan inay doorasho ka dhacdo waa khasab in doorasho heshiis lagu yahay ay dalkan ka dhacdo waxaan leenahay marka hal dariiq ayaa madaxweynuhu ku furan talada dhulka iska doorasho oo sida uu asagu rabay maskaxdiisa yarta ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo huwa boqolkiiba boqol inuu bari oo madaxweyne ku noqonayo isagu waa lagu tartamayaa ma aha maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna kala doorsiinayaa laba arrimood oo mid la qaadan kara aan lahayn doorasho oo sida uu asagu rabay maskaxdiisa yarta ku sawiran loo dhaco oo loo boobo dalka inay ka dhacdo oo huwa boqolkiiba boqol inuu bari oo madaxweyne ku noqonayo isagu waa lagu tartamayaa ma aha iyo inuu sii joogo meesha iska fadhiyo labadaasuna kala doorsiinaya waa iska joogayaa haddaanan joogaynin doorashada nooca aan rabaa laga dhigaa labadaba mid la aqbali kara ma jirto waa sii joogaana lama aqbali karo saan rabaa doorashada laga dhigaana lama aqbali karo doorashada masiirka ummadan waaye wax maan hal nin uu leeyahay kama soo bixi karto waxa uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo darajooyinka uu bixinayo diblomaasiyiinta uu magacaabayo uu ku laaluushayo meelaha uu wax ka taataabanayo dhan saraakiisha ciidamada loo yeerayo ee aan laga hadlayn al-shabaab iyo cadowga dadkan haysta sidee looga xoreeya ee la leeyahay 6 biloodba maraan shirweyne noocaana saraakiishu isugu imaan doonaa haddee calaamadahaasi waxa ay micnaheeda ku fadhiyaan dadka Soomaaliyeed maangal waaye waana fahmi karaan waana aqri karaan waana fasiran karaan labadaas option ma kala dooranayno waa diidaynaa labadaba waa joogayaana ma ogolin oo horeyaan usoo diidnay saan rabaan ka yeelayaana ma ogolin maxamed cabdullaahi farmaajo maanka ha u soo noqdo Soomaaliya walax asaga iyo aqligiisa iyo maskaxdiisa oo ku maamuli karo waa ka weyn tahay waqtigii fursada loo sii inuu ku maamulana waa ka soo dhamaaday meeshaas rabaa taas inaan dhigno mas'uuliyadda dadkay u dhiibanayaan inay ka fiirsadaan markay u dhiibaan kadibna inaanay ka harin ay ku ilaashadaan sanad kadib mudaxileedkiisa markuu dhammaaday maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah